Haddaba dagaaladii sokeeye ee ka dhacay waddanka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu ahaa mid aanan waxba reeban, isagoo galaaftay dad iyo duunyaba, deegaan iyo weliba daaqsin intaba. Waxa uu ahaa dagaal umuladoox oo weliba cidna aanan ka tegin. Wuxuu saameyn baaxad weyn leh ku yeeshay dadkii Soomaaliyeed ee deganaa dhulkaasi, iyadoo dagaalada iyo dagaalyahanadaba aysan wax u aaba yeeleynin. Haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo iyagu ka mid ahaa qaybaha bulshada ayuu dagaalkaasi si toos ah ama si dadban saameyn ugu yeeshay, iyadoo fanaaniin badan ay ku dhinteen dagaaladaasi Soomaaliya ka dhacay ee sokeeye, ha ahaadaan kuwii kacaanka lala galay, ha ahaadaan kuwii taliskii Maxamed Siyaad lala galay, ama ha ahaado kuwii dambe ee Soomaalida iyada dhexdeeda isdooxaysay. Fanaaniin badan ayaa iyagu lagu dilay si aana qabiil ah iyo weliba siyaabooyin kale oo kala duwan dagaaladii ka socday gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa daawadayaal dhowr fanaan oo iyaga lagu dilay qaybo kala duwan geyiga Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaalida xilligii dagaalada sokeeye, iyadoo fanaaniin badan si toos ah loo dilay iyagoo looga dan leeyahay aana qabiil, kuwa kalena ay iyaguna ku dhinteen si lama filaan ah oo xabadi guryahooda ugu tagtay ama madaafiic intaba. Haddaba waxaynu ka bilaabeynaa fanaanka weyn ee la holin waayey, fanaanka codka halaasiga leh, macallinkii Soomaaliyeed Maxamed Mooge Liibaan. Maxamed Mooge Liibaan wuxuu ka tirsanaa jabhadihii Soomaaliya ee iyagu ku kacay taliskii Maxamed Siyaad ee kacaanka ahaa ee xilligaasi waddanka ka talinayay. Maxamed Mooge ayaa isagu Ethiopia wuxuu kaga biiray jabhadii SSDF kadibna jabhadii SNM. Maxamed Mooge ayaa isagu waxa uu ahaa fanaan codkiisa iyo weliba hibadiisa faneed ugu hiiliya qadiyadda ummadiisa. Waxa uu qoriga u qaatay iyo kabanka, marna inuu codkiisa ugu hiiliyo shacabkiisa, marna xabadiisa ugu hiiliyo shacabka uu xaqooda u dagaalamayay. Maxamed Mooge ayaa waxaa lagu dilay Awaare oo ka tirsan dhulka Soomaalida ee ismaamulka Ethiopia. Maxamed Mooge ayaa dilkiisa waxaa loo aaneynayaa ciidamadii taliskii Maxamed Siyaad oo iyagoo halkaasi si gaadmaha ugu dilay, inkastoo dadyowo kale ay sheegayaan in dilkiisa uu yimid ismaandhaaf iyo khilaaf ka dhex taagnaa jabhadii SNM dhexdooda. Si kasta ha ahaatee, fanaanka weyn ee Maxamed Mooge ayaa isagu dil loo qasday loogu geystay dhulkaasi, isagoo ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda qiimaha iyo qaayada u saaxiibka. Allah u naxariista Maxamed Mooge. Waxaynu kaloo soo qaadanaynaa fanaan iyo abwaan weyn oo halkudhig u ahaa wadaniyad iyo weliba la dagaalanka cadowga Soomaaliyeed. Waxa uu ahaa abwaankii ugu heesaha wadaniga badnaa, isagoo dagaalkii 77 si dhab ah ugaga qayb qaatay, heesihiisana ilaa iminka maskaxda Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ay ka guuxayaan. Waxa uu ahaa abwaan sameeyey heeso badan oo kacaanka bari taaraya, isagoo weliba shacabka ku hanuuninayay in loo hoggaansamo weliba awaamirta kacaanka iyo weliba hanuunintiisa. Waa abwaanka weyn ee kooxdii Heegan madaxda ka ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed, Cabdi Bashiir Indhabuur. Cabdi Bashiir waxa uu ka tirsanaa kooxdii Heegan oo uu madax ka ahaa, abwaan heerkaalkacyood ah, ahaana abwaan Soomaalida heesihiisa iyo hibadiisaba fanka Soomaaliyeed u hibeeyey. Heesihiisa ilaa iminka ay yihiin kuwa aan marnaba dhicin. Sidaas ay tahay, dagaaladii sokeeye markay dhaceen iyo xilliyadii dambeba abwaankana uu u muuqatay in kacaanka iyo weliba taliskii xilligaasi ay cadaalad xumo u geysanayaan ummadda Soomaaliyeed, ayuu wuxuu bilaabay heesihiisa inuu weliba iyo gabayadiisa ku tusaaleeyo ummadda in ay kacaanka ay ka gudbeen wixii la isku ogaa, taliskiina uu kula dagaalamo erayadiisa iyo weliba suugaantiisa. Dagaaladii kadib ayaa Cabdi Bashiir waxaa ku dilay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya ciidamadii taliskii Maxamed Siyaad oo iyagu markaasi baxsad ahaa. Waxa lagu dilay abwaanka wax aanan qiimo lahaynin, isagoo weliba loo dilay inuu kasoo jeedo qabiilka Hawiyaha ah oo markaas USC ahaa oo magaalada ka bixiyey taliskii Maxamed Siyaad. Intaas oo keliya ayuu u dhintay, laakiin dad badan ayaa waxay ku andacoodeen hadal markii la dilay kadib lagu soo hadal qaaday dadkii dilay abwaanka weyn ee Cabdi Bashiir, iyagoo yidhi afkii uu shalay inagu ammaanay inaguma caayi doono. Intaa darteed ayaa loo dilay abwaanka qabiilkuu yahay iyo weliba suugaantiisa
oo u adeegsan doono darteed ayuu abwaanka u dhintay. Allah u naxariistay abwaanka. Waxaynu soo qaadanaynaa Allah u naxariistay fanaan kale oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu qiimaha badan. Waxa uu ahaa fanaan codkiisa samawaadka uu kala layo, shimbiruhuna ay dhageystaan. Waxa uu ka mid ahaa kooxdii Waaberi ee fanka Soomaaliyeed. Waxaa kale uu ahaa farsamayaqaan ka tirsanaa Radio Muqdisho, welibana sheeko qiimo badan oo halkaas ka bixi jirta actor ka ahaa. Waa fanaanka weyn Allah u naxariistay Axmed Inshaar Cabdi Olol. Axmed Inshaar Cabdi Olol. Axmed Inshaar waxa uu ka mid ahaa farsamayaqaanadii Radio Muqdisho, isagoo weliba ku caanbaxay sheekadii Olol iyo hooyadiis uu sameeyey Allah u naxariistay wariyihii weynaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal. fanaanka oo lagu magacaabo Axmed Inshaar Cabdi Olol waxa uu magac Olol ka qaatay sheekadaasi ee ahayd Olol iyo hooyadii. Kadibna fanka Soomaalida ayuu galay isagoo cod halaasiya leh, riwaayado badan iyo heeso badan oo caan baxayna qaaday. Qof kastoo Soomaali oo geeya Soomaaliyeed jooga ama dhul sheeyaba waa uu yaqaana Axmed Inshaar Cabdi Olol. Axmed Inshaar 1991 dagaaladii sukeeye markay dhaceen ayaa xaafadiisa kula dhacay baasuuke, halkaas uu deganaa xaafada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Allah u naxariisto Axmed Inshaar Cabdi Olol. waxaynu kala soo qaadanaynaa fanaan majaajiliiste caan ahaa oo Soomaaliyana aad iyo aad loogaga yaqiinay. waxa uu ahaa fanaan ka mid ahaa kooxo kala duwan, kana mid ahaa macallimiintii Soomaaliyeed ee arday badan ka aflaxday. waa majaajiliistaha caanka ah Allah u naxariistay Cismaan Jeete. waxa uu ahaa majaajiliiste geyga Soomaaliyeed iyo meel kasta Soomaalida ay degta laga yaqaano. wuxuu ka qayb galay dhowr riwaayadood iyo show badan, isagoo Radio Muqdisho u duubayay sheekooyin qosol badan. waxa uu kaloo ahaa macallin Soomaaliyeed oo arday badan ay ka aflaxday. Cismaan Jeete dagaaladii sukeeye kadib fankiisa iyo suugaantiisa ayuu kula hadlayay dadka Soomaaliyeed, isagoo kaga digayay qabyaalada iyo qabiilka iyo weliba in waxyaabaha xun laga gudbo. Cismaan Jeete waxaa lagu dilay 4 jardiino ee magaalada Muqdisho 1999 isagoo show u socda. waxaa loo dilay aana qabiil isagoo kasoo jeeda qabiilka Wacislaha loo yaqaano, halkaasoo ay ku dileen niman qabiilka loo Warsangeli la yiraahdo, sababtoo ah nin Wacislaha ayaa nin Warsangeliya dilay. Cismaan oo san ogeyn meesha wax lagu dilay, aqoonina ninka wax dilay iyo kan la dilay intaba, waxaa loo dilay oo kaliya in ninka wax dilay ay isku qabiil ay ahaayeen. 1999 ayay ahayd 4 jardiino markii lagu dilay Cismaan Jeete. Allah u naxariisto Cismaan Jeete. waxaynu kala soo qaadanaynaa fanaan musician caan ahaa hoblada Waaberi ka tirsanaa, Xasan Aadanna uu aad iyo aad u jeclaa, Qaasin Axmed Raage Qaasin Qaxweyste. Qaasin Qaxweyste waxa uu ahaa macallin ka mid ahaa macallimiintii ubaxii kacaanka ee degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho. waxa uu deganaa wacanka ah xaafada Tawfiiq ee degmada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho, isagoo gacantiisa ay kusoo aflaxeen fanaaniin badan sida Xabiibe Xasan Tooxow, Shariif Bakaari iyo dad kaleba. waxa uu ahaa fanaan bass ka tuma iyo noocyada kala duwan ee muusikada. Xasan Aadanna dhinac taagnaa xilliyadii dambe ee 80-maadkii. fanaanka ayaa isagu wuxuu kadibna dagaaladii sukeeye markay dhaceen ka mid ah kooxdii Banaadir Star iyo kooxo kale oo dagaaladii ka bacdi samaysmeen. 2002 ayaa waxaa lagu dilay xaafada Shibis ee magaalada Muqdisho, xilligaasoo isaga iyo Kuusow Kuntuwaare Allah u naxariistay ay isla socdeen. Qaasin waxaa loo dilay aana Qaasin Qaxweyste, waxaa loo dilay aana qabiil, isagoo nin qabiilkiisa ka mid ah dilay nin kale oo qabiil kale oo isla abgaalka ka mid ah. Allah u naxariisto musishinkii weynaa Qaasin Axmed Raage Qaasin Qaxweyste. iyagoo fanaaniin badan iyo abwaano kale siyaabo kala duwan ugu dhinteen dagaaladii sukeeye, kuwa aana qabiil loo dilay iyo kuwa kaleba, ayaa haddana maanta intaas ayaynu kusoo qaadanaynaa fanaaniintii Soomaaliyeed ee iyagu dagaaladii sukeeye ay galaafteen. Allah u naxariisto dhammaantood. barnaamij noocan oo kale ah intaynu dib dambe ugu kulmi doono, nabaadiina nooli kulante iyo amaana Allah.